goolkii koowaad ee kooxda kubadda cagta ee Villarreal ayaa waqtigan imaan saaxiibayaal Blaya Daya ninka la yiraahdo ayaa goolka hore ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Villarreal goolkii hore ciyaarta ayaa saaxiibayaal helayaan Liverpool ayaa hoggaanka ciyaarta laga qabtay Daya ayaa gool qurux badan ka dhaliyay shabaqa waardiya kayaha goolaha Alicia Baka inkastoo markii hore ay naqay kartay offside si cajiib ayaa loo soo qaaday kubadda Coughlin ayaa sidaas sameeyay banaanka markii la soo dhigay Daya ayaa shakab siiyay shabaqa waardiya kayaha goolaha Alicia Baka Villarreal goal Liverpool 0 ayaa goolka hogaaminaysa Janis waa kana markaan Janis Alberto Morata kursadii labaad ciyaarta penalty u baahan kubadda inay tahay penalty saaxiibayaal u baahan inay kubaddan tahay fursad cajiib ayaa Liverpool saaxiibayaal u helay goolkii baad ee kulanka ayaa saaxiibayaal laga imaan kara Janis fiican ayay kubaddan saaxiibayaal heed si qurux badan waa laga soo hormaray goolaha Alicia Baka caadi ayuu mar kale fiiriyo taakal uu sameeyay sida waqtiga muuqanaysa sida darteed kubaddu waa penalty siday u baahan tahay inkastoo garsoorka uu yahay shaqo qofka ku leh wala arki doonaa goolkii labaad ciyaarta hadii laga dhaliyo Giovanni Lo Celso ayaa saaxiibayaal mar kale fiiriyay qalad uu galay goolaha Alicia Baka ayaana qaladka waqtiga sameynaya wala arki doonaa go'aanka garsoorka Faransiiska ah haddii go'aan uu ka dhigo Liverpool in laga dhigo penalty taasoo dhibaato ku noqon doonta isla markaana ciyaarta ee barbar noqon doonto go'aanka waxa uu noqon doonaa mid garsoora ah laakiin waxaan ku sheegi karaa Liverpool inay halis xoogan ku jirto halis xoogan ay saaxiibayaal mar kale fiiriyo ku jiraan goolaha Alicia Baka oo qabjilin mar kale fiiriyo sameeyay ayaana dhulka hadda yaala afan wuu isaga goolaha ugu dambeeyay Liverpool saaxiibayaal labadii gool ee kulankii hore ee Emma waa lagu dhaliyay garoonka Anfield waxa uu noqon karaa mid laga soo laabta laakiin su'aasha ugu weyn waxay noqon doontaa yaa goolka celin doona kuwa weerarka ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool qaladka Naby Keita ayaa markii hore soo sameeyay inkastoo la diiday in kubadda ay penalty tahay markaan Pau Torres Janis kolo cajiiba waa kana markaan banaanka la soo dhigi karaa kubadda oo laakiin ugu dambeyntii ma aysan naqan garabka taala kubadda banaanka la soo dhigay Janis markaan goolkii labaad ciyaarta Liverpool saaxiibayaal waa laga soo laabtay ciyaartii saaxiibayaal garoonka Anfield waxa uu noqday mid leeyahay doono goolkii labaad ciyaarta ayaa saaxiibayaal yimid waxaana mar kale fiiriyay shabaqa u daray kala magacaabo Faransiiska Coughlin Villarreal 2 Liverpool 0 It was a long diagonal ball into Capoue over the head of Andy Robertson. Just sums up the way Liverpool have defended. They've been ragged, they've been scrappy, they've been disorganised. But boy, does Capoue, do Villarreal make the most of this, and what a header it was. Look at Capoue, he's timed, he's bent the run like a forward. And he's managed to dig one out. wax walba oo garoonkan ku aadanaa miisaankiisa ay soo kala natiijo walba oo ka dhalatay ciyaartii lugta hore goolkii la rabay in gool lagu kabo waxa la yimaadey ninka lagu magacaabo Francis Joseph Coughlin kaasi oo dhashay 13 May 1991 waana 30 jir waxa uu ku dhashay halka lagu magacaabo Level oo Faransa kamid ah 1.76 mitir oo u dhigata 5 feet iyo 9 inji ayuu mar kale fiiriyay dharkiisa uu yahay Liverpool saaxiibayaal heli karta goolkii koowaad ee kulanka laakiin ugu dambeyntii waa laga diiday saaxiibayaal Liverpool waa laga soo laabtay ciyaartii mar kale fiiriyay garoonka Anfield waxay noqotay mid la nasaqay wixii waqtigan ka dambeeyana waa la arki doonaa Ibrahim Kanote waa ka Fabinho asiga waqtigan ku badaysta waa ka mar kale Salah Fabinho goolkii koowaad ee ciyaarta Fabinho ayaa saaxiibayaal soo celiyay mid kamid ah goolashii labadii gool ee lagu lahaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool ciyaartooyda qaranka waddanka Brazil ayaa saaxiibayaal shabaqa gaaray kooxaha Jareer Rolo wuu awoodi waayay inuu celiyo kubaddii quruxda badnayd ee mar kale fiiriyo u dhalay ciyaartooyga lagu magacaabo Fabinho kubaddan waxa lagu amaani karaa ninka la yiraahdo Mohamed Salah kaas oo mar kale fiiriyo aad u soo shaqeeyay qalad ayuu ku lahaa Raul Albiol shoodkii gantaalka ahaa ee Fabinho waxa uu noqday ciyaartii inuu ka dhigay 2 gool iyo gool Liverpool gool ayaa saaxiibayaal soo celinaya waqtigan waa kana markaan Fabinho bul ugu dambeyntii
labada lug dhexdooda ayay mar kale fiiriye ka baxday Villarreal 2 Liverpool 1 but he does the job. waa kana markaan Trent Alexander-Arnold cross la soo qaaday markaa goolkii labaad ee ciyaarta oo Liverpool ayaa saaxiib yaal laba gool ciyaarta ka dhigtay Luis Diaz ayaana saaxiib yaal wax walba waxa uu ka dhigay mid garba siman ah laba gool Liverpool 2 Villarreal 2 VAR of course will have a look, but the Villarreal defence is squeezed up, and Luis Diaz in particular seems to have timed his run to perfection. Completely on top now, Liverpool. They could take this tie firmly away from the hosts in the next 10 minutes or so. Doesn't need to be right foot from Alexander-Arnold. He can shift it onto the other and whip in the in-swinger. Yeah, Salah might have been factually offside, but certainly Diaz wasn't. And another one through the legs. Another one. You can't put so much blame on Rulli this time. He was exposed badly. Luis Diaz didn't need to get much on it. And we're back to where we were at the start. Liverpool with a 2-goal lead in the tie. ciyaartooyga qaranka wadanka Colombia ninka lagu magacaabo Luis Diaz ayaa saaxiib yaal laba gool ciyaarta ka dhigtay laba gool ayuu saaxiib yaal ciyaarta ka dhigay ninka lagu magacaabo Luis Fernando kulanka ay dhalisay Liverpool ayaa saaxiib yaal laba gool ku hogaaminaysa aggregate-ka waa kana markaan Mane Sadio Mane waa kana Mane goolkii saddexaad ee ciyaarta Liverpool ayaa saaxiib yaal lisa goolkii saddexaad ee ciyaarta Villarreal 2 Liverpool 3 So cool. Very easy. ciyaartooyga lagu magacaabo Sadio Mane ayaa saaxiib yaal goolkii saddexaad ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool dadaal walba ay sameeyeen ciyaartooyda Villarreal waxa uu ku soo ilaaday in saddex gool loogu bedelo goolashii labada ahayd Liam Francisco Coquelin iyo sidoo kale Baloya Daya ninka la yiraahdo Sadio Mane ayaana ka tagay laba ka mid ah difaaca iyo sidoo kale goolayaha uu dhaafay ugu dambeeyna waxa uu dhaliyay goolkii saddexaad ee kooxda kubadda cagta ee Liverpool nin weyn ceeb ma keena ayaan maqli jiray waxa caawa la arki doonaa ama ay tani ka dhigan tahay koox weyn ceeb ma keento Liverpool la saaxiib yaal awoodii lagu yaqaanay dib ayay isku heleen waxaana tababaray Jordan Klopp qeeladii qolkii labiska iyo sidoo kale dardarankii ay u bedeleen mid marka la fiiriyo run ah oo ay ku qaateen sababtoo ah way soo laabteen kooxda kubadda cagta ee Liverpool kuwaas oo laga adkaan karay shan gool ayay saaxiib yaal tagtay aggregate-ka saddex gool ayaana lagu hogaaminayaa kooxda kubadda cagta ee Villarreal oo waqtigan looga baahan yahay qalada lagu sameeyay mid ka mid ah ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Villarreal waxaan laga bilisoon jaran ah waa jaalihii labaad ee ciyaartan